labada maalin uu fasaxa yahay waalidiintiisa ayaa waxay u kaxayn jireen guriga eeyadiisa waxayna qaadan jireen tariin hal maalin markii uu la soo joogana dib ayay uga soo celin jireen waxaa dhacday maalintii dambe inuu dhaho hooyo iyo aabbo aniga waa weynaaday markanna uma baahni in la ii wado ayeeyo haddaba aniga keligay ayaa bixi kara waalidkii waa uu ka yeelay arrinkaasi balse wuxuu bilaabay inuu talooyin siiyo waxa uu ku jawaabay in badan ay asiiseen talooyinkani waana ka dhereegsanahay markaas waxaa dhacday aabihiis inuu usoo dhawaado jawaabka ayuuna wax u geliyey wuxuuna dhahay lacalla haddii aad xanuunsato ama aad dareento cabsi waxaad la soo baxdaa waxaan aan jaab ku geliyey wiilkii yaraa tariinka ayuu keligiis soo raacay asigoona aad u cabsanaya dadka oo idilna way fiirinayeen waxayna lahaayeen waa maxay wiilkani keligiis safaraya wiilkii markii dambe waxa uu bilaabay inuu ooyo balse markii dambe wuxuu soo xasuustay aabihiisa waxa uu jaabka u geliyey isla markii buu la soo baxay waxayna noqotay warqad waxaana ku qoran wiilkayga waxaan fadhiyaa qaybta dambe ee tariinka keligaaga ma tihid waxba ha cabsanin